waxaa ugu waaweyn qaar ka mid ah culimada oo shir uga qayb galaysa Muqdisho oo sheegay inay wada hadal shabaab ugu tagayaan kadib baaqi madaxweynaha xukuumadda Soomaaliya oo soo bandhigtay qorshooyin cusub oo al-shabaab lagula dagaalamayo sarkaal ka tirsan ciidamada badda Puntland oo lagu dilay magaalada Boosaaso duqa Muqdisho oo sheegay 3,000 oo ciidan booliis ah in loo diyaariyay ammaanka Muqdisho biriqdad ku dishay deegaano ka tirsan gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya talaada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 23 bisha Afraad Abriil sanadka 2019 intaad maqasheen qodobada waaweyn ay ahayeen u diyaar garoobo warkii intaas ka dhameystiran Faysal Hanad ayaa soo saaray warka duhurnimo aynu ku bilownay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo shirka uga qayb galaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay wada hadal ururka al-shabaab ugu tagayaan kadib markii baaq uu u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya inay dhexdhexaadiyaan dawladda dhexe iyo ururka al-shabaab Axmed Tifo Xasan ayaa ka waramaya iyadoo dhawaan uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu sheegay inay ka doonayaan culimada Soomaaliyeed in door weyn ay ka qaataan wada hadalsiinta al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya kadib markii uu furay shirka culimada Soomaaliyeed oo Muqdisho ka soconaya madaxweyne Farmaajo ayaa culimada ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dalka wacyigelinta shacabka iyo talasiinta dawladda Soomaaliya waxaana uu madaxweynaha xasuusiyay culimada Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba isaga yimid shirkan inay ka qayb qaataan caqabadaha iyo dhibaatooyinka dib u dhigay Soomaaliya in ay qayb ka yihiin qabyaalada iyo musuqmaasuqa intaas kaliya ma haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dawladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culimada Soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen haddaad tustaan maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awoodoodu ay yaraanayso 11 sano ya 12 sano la marayaa hadda dalkan intuu dagaal ku jiro dagaalkaas uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixis ah waxa soo maray 4 maamul oo anigu aan ugu dambeeyo ilaa intee way sii soconaysaa marka waa baaba'een iyaguna annagana waana baabi'iyeen ilaa intee yaan rabnaa inaan gaarno waxa baaba'ayana waa ummad Soomaaliyeed weeye waxa ka baaba'ay waa wiilasheenii waxa ay baabi'inayaana waa wiilasheenii iyo hooyooyinkeenii iyo caruurteenii iyo dadkeenii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka yay u faa'iideeyeen waxa weeye ilaahay noo soo hadeeyo ilaahay noo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aad la dardaarantaan waxaan aaminsanahay inay soo noqon doonaan waqti ahaato dhinaca kale baaqa madaxweynaha Soomaaliya waxa ka soo jawaabay culimada ku shirsan Muqdisho iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin fulinta codsiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Sheekh Xasan Jaamici oo kamid ah culimada kulanka uga soconaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin wada hadalsiinta dawladda Soomaaliya ee al-shabaab ayna midda u fududahay laakiin waxa uu ka dalbaday xukuumadda in ay u ogolaato tagitaanka goobaha al-shabaab ay joogaan Prime Ministerka Deputy Prime Ministerka halkaan la joogo aan u sheegayaa isagoo wakiil ka ah madaxweynaha iyo gobornarka nala joogo saaxiibkay Engineer Yariso inaan diyaar u nahay waxa la weydiiyo su'aal dhalinyarada ma la hubaa haddaad soo laabata qarax dambe inuu Muqdisho ka dhicin waxaan dhahay dawladda ku xiranta fiiraa su'aasha ay weydiiyeen dawladda day noo fasaxdo sida Abdullah ibn Abbas oo kale nala diro meelaha ay joogaan wala yaqaan meesha nala fasaxo aan u tagno aan la sameeyno debate and dialogue xiwaar aan la sameeyno aan ku soo guuleysano waxaan hubaa buugi yara aan ka diyaariyay shirka culimada oo qaybta ugu dambaysa cilaajka aanan gaarin waqtiga dartiis waxaa ku taalo shabaab 4 qaybood inaan u kala qaybiyay daraasad aan sameeyay darteeda 4taas hal qayb ma ahayn inta kale oo dhan in raad lagu yeelan karo lana soo celin karo waxna laga bedeli karo kuwa kala soo haray markay diidaan Sheekh Xasan iyo culimada waxaan diyaar u nahay sida Abdullah ibn Abbas inaan dhahno haye anoo koofiidan wata tuutaha inaan gashano marka aan diyaar u nahay Dr. Abraham Badiwa wuxuu dhahay waxaan maqlay serious inay ka tahay yes I'm very serious jiddiye iga tahay saasaan u nimid anaga uma imaan inaan ku beeno aan sheekeeno waxaan u nimid qarax dambe inuusan ka dhicin Soomaaliya oo dhan maaha Muqdisho furitaanka shirka culimada waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo mas'uuliyiin sarsare oo dawladda ka tirsan
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar, gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariisow, culamo Soomaaliyeed oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisa, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo magaalada Muqdisho isugu yimid, iyadoona aan la ogeyn sida culimada Soomaaliyeed ay damacsan yihiin qorshaha ah in ay dhexdhexaadin u sameeyaan dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab. xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshooyin cusub oo ururka al-shabaab lagula dagaalamayo. Faysal Hanad ayaa ka waramaya. dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn kaga walaacsan dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab ayaa hadda soo bandhigtay talooyin ku aadan ahanaan dowladdu ay u aragto in al-shabaab looga adkaan karo dagaalka lagula jiro. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo ka hadlayay dagaalka shabaab iyo dowladda ayaa sheegay door shacabka oo ka qaata inay tahay kaalinta ugu habboon ee shabaab looga adkaan karo. waxa uu tusaale u soo qaatay al-shabaab haddii shacabka ay ugu midoobaan sidii muqaawamadii xamar ee dagaalka kula jirtay ciidamadii Itoobiyaanka, arrintaas inay noqon karto mid looga adkaado ururka al-shabaab. taa haddayna midho dhalkeena haynin miyaynaan ku dayi karin in aynu halgankii daraawiishta oo labaad furno? miyaynaan culimay ku dayi karnin sayid maxamed cabdulla xasan qarnigan joogaa inuu inaga soo baxo, dowladdana berber istaago, shicib iyo dowladbana lala wada dagaalamo? miyaynaan kala hortegi karin muqaawamadii 2006 aynu xabashida ku muqaawamaynay oo aan ku celinay oo ay dib inooga noqdeen? waxay la tahay tajribooyin fara badan ay taariikhda Soomaalidu leedahay. gumaystihii baynu ka hor nimid. haddii maskaxda aynu tuujinno, fikirka isku darno, dowladda isberber taagno, doorka culimada Soomaaliyeed leedahay shariifka ahna si fiican uga ciyaarta shacweynaha haddaan nahayna aynu dhegaysano, dowladduna dhegaysato, dhagaheena aynu furno, gacmaha isqabsano, inaynu meel fiican ilaahay idamkiisa gaarina karno. al-shabaab ayaa dagaal waxa ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya, balse talooyinka iyo hanaanka uu soo bandhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaanan u muuqan mid dowladdu ay ka dhabeynayso, maadaama al-shabaab ay ku doodayaan in qaab diin ah ay kula dagaalamaan dowladda federaalka Soomaaliya oo taageero ka hesha AMISOM iyo beesha caalamka. faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland loogu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Puntland. sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Mire Jaceyl, waxaana dilkiisa uu ka dhacay taliska ciidamada Kumaandooska ee Puntland kaasoo ku yaala duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana la sheegay inuu dilay askari ka tirsanaa ciidamada kadib khilaaf soo kala dhexgalay. dilka kadib ciidamada Puntland ee saldhigaasi ku sugnaa ayaa la xaqiijiyay in gacanta ay ku dhigeen askariga dilka u geystay sarkaalka ka tirsanaa ciidamada dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan kuwa Kumaandooska. saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxa ay sheegeen in askariga dilka u geystay sarkaalka dhowaan maxkamadda la horgeyn doono, isla markaasna ay gacanta ku hayaan ciidamada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in 3,000 oo ciidan booliis ah loo diyaariyay ammaanka magaalada Muqdisho. Cabduqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. taliska booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa diyaariyay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo maamul qura ay naga xigaan. ciidamadan oo maanta la soo bandhigay ayaa qorshoodu yahay in amniga magaalada caasimadda ay si weyn u adkeeyaan maalmaha bisha Ramadaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow ayaa sheegay in ciidamadaas ay gaarayaan ilaa 3,000 oo askari oo aan lahayn wax balowd ah, kuwaas oo dhowaan tababar soo dhameystay muddo bilooyin u socday si ay u xaqiijiyaan maalmaha bisha barakeysan ee Ramadaan amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. caasimadda oo iyadana diirad xoog la saaray 3,000 oo ciidan booliis ah oo nadiif ah oo ka fog arrimaha muqaadaraadka ama qaadka ama dhaqanka xun ayaa la diyaariyay. tababar muddo la siinayay, iyagiiba hadda la howlgeliyey. waxaan wadnaa barnaamijkii dariseynta oo runtii gobolka Banaadir iyo guddiga wacyigelinta heer qaran iyo dhammaan bulshadaba aan ka wada qayb qaadanayno. intaas kuma ekaanay hadda isbuucan ayay ahayd markii
aan dhahnay howlihii waa socdaan laakiin weli dadkii ma arkayaan resultiga loo baahnaa 3 degmo ayaan si tijaabo ah heshiis ula galnay gudoomiyihii iyo good councilkii isu keenay xaafad walba sidii degmo muxuu ahaa neighborhood watch scheme wax loo yaqaan dariseynta 10 guriba iyo 50 guriba heshiis waxaan la saxiixanay inaan isu wada keennay inay si kastaba bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada muqdisho wadooyinkeeda la dhigay ciidamo fara badan oo ka qayb qaatay sugidda amniga iyadoona dowladda Soomaaliya xilligaas ay ku dhawaaqday qorshe loogu magac daray nabad ku afur waxaana amniga magaalada caasimadda u ahaa mid wanaagsan oo bishii ramadaan si wanaagsan amnigeeda lagu dhameystay. biriqa ayaa dad waxay ku dishay deegaano ka tirsan gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya. Cali Xasan Cali ayaa ka waramaya. saacadihii lasoo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan gobolka Baay waxaa ka da'ay roob dadka ay ku qabowsadeen xilli xaalad daran oo kuleel iyo roob la'aan ah ay ka jirtay deegaanadaasi. kasakoo roobka dadka ay ku qabowsadeen waxaa jirtay in biriq ay ku dhacday deegaanka Kanaanax oo ka mid ah deegaanada hoostaga deegaanka Buula Foolay ee gobolka Baay. dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in hal ruux uu ku dhintay biriqdaasi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa 3 ruux oo dad shacab ah kadib markii ay ku soo dhacday biriqda xilli ay ku sugnaayeen aqalkooda. dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Baydhabo halka sidoo kale qofka dhintay saaka lagu aasay deegaanka Kanaanax ee gobolka Baay ka tirsan. xilligan oo gobolada dalka ay ka jirto xaalad roob la'aan ah ayaa dadka waxa ay yihiin kuwa dareemaya xaalad kuleel ah waxaana magaalooyinka qaar lagu qabtay salaad roob doon ah oo alle looga baryayo raxmadiisa. ugu dambeyn dhageystayaal ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay degmada bariga Uganda taasoo lagu magacaabo Buujin oo dhacda xeebta kadib markii guryahoodii ay burburiyeen roobab xoogan oo ka da'ay sida ay sheegayaan saraakiisha. 200 oo guri ayaa la soo sheegayaa in ay burburiyeen roobabkii cuslaa sida wakaalada Anadol u sheegay William Kiza oo ah hogaamiyaha degmada Buujin. waxa uu sheegay in roobabkii cuslaa ay yimaadeen kadib abaaro aad u dheer taas oo hoos u dhigtay wax soo saarka beeraleyda reer Uganda. Stephen Wagamala oo ah gudoomiyaha Kadera oo ah gobol ka mid ah dalka Uganda uu saameeyay roobka ayaa yiri waxaa bilowday roob xoogan waxa uu soconayay ilaa 3 saacadood. waqtiga roobka uu istaagay qaylo ayaa mar qur ah ka maqalnay dhowr tuulo kadib waxaan sameynay gurmad degdeg ah. kooxaha samata bixinta ayaa hadda waxay wadaan gurmad taas oo u sameynayaan dadka dhibaatada ay soo gaartay. guud ahaan waxa inta nooga